culimada deegaanka Cada Kibir ee gobolka Galgaduud oo xilliyadii dambe ku hawlanaa dhismaha masjidka jaamaca ee magaalada oo heer qabyo maraya ayaa bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba ka codsaday inay si mug leh uga qayb qaataan dhismaha masjidka iyo dhameystirkiisa. Sheekh Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xuseen iyo Sheekh Nuur Cabdi Cilmi ayaa ka hadlay ahmiyadda diineed ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha masaajida. wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam man bana baytan lillahi bana allah baytan fil janna qofkii ilaahay beedkiisa dhisa ilaahay jannada gur uga dhisa da beedka qofka wax ku darta waa soo kale marka beedkan masjidkan oo intii muddo socday ilaa hal sano iyo bar qofkii maalkiisa ku dirta sababkii maalkiisa ku darta uu ku helaya sababkiisa janno maalin Ramadaan ay tahay oo sadaqada la bixiyo ay fadli badan tahay ayaa markaas waxa maanta yahay ujeedadeenna inaan dadka ugu baaqno muslimiinta awal wax ku dara jiray iyo kuwa aan ogeynba maanta waxa naga dhimanaa oo masaajidka sagxadiisa Quraan u diyaarsanayn inaan markaan sidii aan u dhameystiri lahayn aan u taaganahay dadka muslimiinta aan ka dalbayno waxay dhiman inay nala dhameystiraan waxa la rabaa walaalayaal dadka muslimiinta ikhwaanka qola kasta qof maal haysata qof kasta qof cod haysata oo sii gudbi karta waxaan ka doonaynaa masaajidkaas Cada Kibir oo hadaan rajin beeshaas hadaan marjin oo jidaalku naga dhaxgalay annagoo dhisayna waxaan doonaynaa hadeerna la rabo inaan saaqxadee dhigno ilaahay idankii waxa naga maqan birtii waa naga maqan tahay waxa naga maqan hadaan barji shameetadii waxa naga maqan alwaaxi hadaan marjirin wixii kale waa lagu soo dadaali tagay laakiin waxaan ka doonaynaa masaajidka wax ka dhameystirtaan diinkeena naafici. Sheekh Maxamuud Maxamed Haybe iyo Sheekh Saciid Axmed Maxamed ayaa ka waramay taariikhda masjidkan oo marxalado kala duwan soo maray haatan dhismuhu ku socdo. waxa weeye masjidkan masjidkii magaaladan jaamica ahay weeye muddo 20 sano ka badan ayuu dhisnay waa naga dumay markuu dumay dhowr jeer uu naga dumay markuu dumay waxaan u bedelnay inaan shub ka dhigno aan ku dadaalnay alxamdulillah rabbil caalamiin meel fiican hadda noo maraya waxa inoo dhiman intaas hadda muuqaalkiisa ka muuqata masjidkii mudarriska ahay weeye oo kutubaha lagu soo bartay oo dadka hadda magaalada iyo wax magaalada kala jiraaba ay kutubaha ku barteen markii ugu horeysay waxa asaaskiisa bilaabay shimaha waa la shaqal jiray Allah u naxariistay shimaha waa bilaabay markii ugu horeysay 6 mitir laga dhigaa soo jeengada xogaa ilaa maalle hadana si kulula dadka soo batay waxa laga dhigaa hadana ilaa maalle 8 ilaa maalle 10 hadana waa la si kululaaday waxa laga dhigaa dhagax 24 ilaa 20 ilaa ma dadkii dambe dhagaxa waa dumay maana markii dumay maana waa la saraaciyay in maana shubul laga dhigaa maana marti ilaa maalle beesha iyo dadka maana muslimiinta maana ay ku tashteen ilaa maalle waa shubaa laga dhigay heerka da arkaysiino maana maraya birti waa loo baahan yahay shameetadii waa loo baahan yahay alwaaxi maana waa loo baahan yahay ilaa maadu sunaatay maana doobarada waa loo baahan yahay birihi jagaga ah oo marta maana shubka cilna waa loo baahan yahay hadda waxa lagu sheegay lama arko qof kasta maana way taqaan dadka maana muslimiinta way yaqaanaan salootada wajiga hore safkar loo yaqaan ma dhinaca mihrabka wuxuu yahay 31 mitir waa dhinaca dambe gadaal wuxuu yahay maana 21 mitir laba minaarood wali way jeedin ilaa maalle hadda lagu maana ilaa majarjarti maana way soo bilaabanta way jeedin heerka dumar ee wadin muuqda Maxamuud Cabdi Diirshe warbaahinta qaranka Cada Kibir.